dhegaystayaal haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista waxaa inoo haya Haaruun Macruuf. afar iyo labaatankii bishii Disembar ee aynu soo dhaafnay madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegtay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxeexay xeer dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku-meelgaarka ah maadaama la galay xilligii doorashooyinka oo ay sii dhammaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada iyadoo aan waxba loo dhimin qodobka 136 ee dastuurka ku-meelgaarka ah madaxweynuhu waxa uu dib u dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka waxaana uu baarlamaanka 11aad u gudbiyey qabyo qoraalka ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ansixinta guddiga la socodka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si loo dhammaystiro looguna ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 11aad ayaa lagu sheegay qoraalkaasi haddaba qodobka 136 ee dastuurku waxa uu dhigayaa laba qodob qodobka koowaad oo ah in inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka la ansixiyo qodobada wax ka beddelista dastuurka kadib marka loo qaado cod kama dambaysa oo ah 3/2 codadka aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka iyo qodobka labaad oo ah in afti loo qaado dastuurka inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaankan haddaba jawaabo kala duwan ayaa laga bixiyay tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya falceliskii ugu horreeyay waxa uu ka yimid gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana uu sheegay in madaxweynuhu ku dhaqaaqay tallaabo halis gelinaysa jiritaanka dastuuriga ah ee hay'adaha dawladda waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha inuu hor istaagay xilgudashada baarlamaanka federaalka madaxweynuhu waxa uu baalmaray habraaca wax ka beddelista dastuurka waxa uu ku xadgudbay kala soocista awoodaha dawladeed ee xeerdejinta fulinta iyo garsoorka ayuu war-saxaafadeed ku sheegay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu intaas ku daray in xeerka madaxweynuhu uu soo saaray uu baalmarsan yahay dastuurka waxa uu sheegay oo kale in go'aan kasta oo ku saabsan maareynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka ay u xil saaran yihiin labada aqal ee baarlamaanka dhinaca kalena sharci yaqaanadu way ku kala aragti duwanaadeen qodobkan qaar ka mid a waxay taageereen mowqifka gudoomiyaha aqalka sare mid ka mid a garyaqaanadu waxa uu sheegay galka baarista in go'aanka uu madaxweynuhu ku wareejiyey dastuurka uu u adeegsaday awood uusan lahayn madaxweynuhu mas'uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda baarlamaanka hadda jira ayaa waajib saari kara baarlamaanka soo socda ayuu yidhi garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya asal ahaan ma aha mas'uuliyad madaxweyne oo xilka iyo waajibaadka madaxweynaha maaha laakiin waa xil iyo waajibaad uu leeyahay baarlamaanka uu leeyahay labadiisa gole ayaana iskale iyagayna ahayd inay go'aan soo saaraan haddii ay u qabsan weydaan yidhahdaan hawshii waa naloo qabsan weyday saa darteed madaxweyne waxaanu soo jeedinaynaa in baarlamaanka kale dib loogu dhigo oo markaa isaguna uu la qaato laakiin inay ka bilaabto xafiiska madaxweynaha ma ahayn waayo de xilkiisaba ma ahayn waxay xilka baarlamaanka marka madaxweynuhu hadduu arrintaa ku wareejiyo isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweynaha oo xeer madaxweyne go'aan fulneedoo madaxweynaha ama wareegto midkay dooni ha ahaatee miyuusan awood u lahayn madaxweynuhu horta awoodaha uu leeyahay waxay ku caddahay dastuurkay ku caddahay oo waa maxay waxa xilka iyo awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 9aad bay ka mid tahay marka soo hoosgeli mayso qodobkan qodob kale oo awood u siinayana ma jiro dastuurka ka mid ah yaartay marka ma sharci buu jabiyay madaxweynuhu madaxweynuhu awood dastuuriga oo aanu lahayn dastuurku siin buu isticmaalay oo ay ahayd inuu isticmaalo baarlamaanka waayo madaxweynuhu ma gudbin karo oo xil iyo mas'uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda laakiin baarlamaan mas'uuliyad saari kara halka way qadiyadu haddii baarlamaanka kale aanu baarlamaan ku wareejin mas'uuliyadii oo xaq xeereed oo sharci aanu ku wareejin baarlamaanka ka dambeeya kuma waajib aha inuu ka dhamaystiro waajib ku noqon mayso waayo wixii meesha ku waajibinaya baa ka baxay ku waajib ku noqon mayso inuu kan qaato iyo inuu dhamaystiro toona wuxuu samayn karaa mid kale hindisi karaa oo process kale uu qaadan karaa oo dhibaatada halkaas ay ka imanaysaa kolka waxa waajib ah waa in la saaro baarlamaankii dambe oo leeyahay kan weeye kala dhamaystiraya kadib eegista lagu eegaya kan weeyaan ka aftida loo qaadaya waa kan marka loo codeeyo ee wax ka beddelkiisa la isla aqbalo Sahra Cumar Maalin waa xubin ka tirsan golaha shacabka waxayna ka mid tahay guddiga xuquuqda aadanaha haweenka iyo arrimaha bani'aadminimada ee baarlamaanka horeyna waxay uga mid ahayd
guddigii ugu horreeyey ee soo diyaariyey dastuurka haatan lagu dhaqmo waxay aaminsan tahay in jidka uu madaxweynuhu u maray wareejinta dastuurka uu ku saxsan yahay xeerka madaxweynaha horta madaxweynaha dastuurka asaa wakiilka ah waan ilaalinayaa wakiilna waa ka yahay wax ka soo saar karaa arrintan marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa kuwa sharciya u tahay inuu asaga haddii u arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balna idlaanayso at least dastuurka ha badbaadiyo marka aniga waxaan ku adkaysanayaa oo sharcina u hayaa oo xaqna ay tahay cadaaladna ay tahay inuu madaxweynaha dastuurkan markuu arkay inay hadda wixii isku qasan yihiin oo labadii aqal kala taagan yihiin oo guddiga dastuurka dhaqaale ahaan ama dhib ahaan ee kaleeto iyagana waxay soo qoreen aan laga akhrisanaynin oo inay keenaan ay ahayd oo cod loogu qaada ay ahayd inuu laalo oo ka dhigo 11aadka ama asaga ha joogo ama yuuna joogin in la wareejiyo laguma kala aragti duwana waxaa lagu kala aragti duwan yahay qaabka loo wareejiyo maadaama labadii aqalba hadda ay jiraan miyaysan sharciyan ku fiicnayn in madaxweynuhu sharci markuu saxayo wuxuu sharci noqonaa markii labada aqal ay isla ansixiyaan marka labadii aqal hadday joogaan maxay u ansixin waayeen si madaxweyne u saxeixo sharci u noqoto guddiga markaan dibku waxay doorashadii qof iyo cod ahayd waa ogeyd waa wada ansixina annagoo wada dhamaan wada ansixina inta ka dambaysay buuqa dhacday oo labada gole aan ku sheegayo oo laysa jaan qaadi waaye oo loo eegay muxuu ahayd aniga aanan fahmaynin oo aad iigu noqotay wax maskaxda ka weyn waxa waaye labadii aqal oo kala taagan oo aan wada shaqaynaynin oo barnaamijyadii ay ku wada shaqayn lahaayeen oo ka mid yahay saa sheegaysa kanoo kaleeto inay ahayd markii halkaa taagan yihiin yaa mas-uul awaa mas-uul dowladdan iyo dastuurkeeda iyo dadkeeda ilaa februaayo waktiga uu ka dhacayo madaxweynaha laga gaar asaa ka ah asee xaq asee beri lagu qabsanaa oo le aawo dastuurka marka feer waxaa ah oo aniga aan qabaa oo aan si sharciyana ula doodaa in muxuu ahaayed ku dooda qof kasta oo weydiiso inuu xaq u lahay madaxweyneha inuu qodobkaan sameeyo kasukoo fasiraada kala duwan ee laga bixiyey tallaabada uu qaaday madaxweynuhu waxaa arrintan ay mar kale soo noolaynaysaa in wax la iska weydiiyo waxa ku dhacay marka horeba in dastuurka dib u eegistiisa lagu dhammaystiro muddo 8 sano ah iyo 2 baarlamaan sidee ayay ku dhacday in dhammaystirka dastuurku aysan weli helin dadaalkii ay u baahnayd in ka badan 15 sano kadib markii la bilaabay qoristiisa haddaba maxaa loo dhammaystiri waayey dastuurka maxaase cawaaqib ah ee ka iman kara haddii la dhammaystiri waayo waa kan mar kale garyaqaan Ibraahim Iidle Sulaymaan maxay yihiin caqabadaha hortaagan 8 sano 2 baarlamaan inay dhammaystiri waayaan dastuurka maxay guuldarrada ayaa iskale baarlamaankaas iyagaa la weydiinaya iyagaa laga rabaa inay warbixin ummadda Soomaaliyeed siiya oo ay yiraahdaan sababta caynka iyo caynka iyo caynkasan u dhammaystiri kari weynay oo nagu dhammaystirmi waayay baarlamaanka dastuurkii waa u suruubi weyd wasaaradii dastuurka waa inay sharaxdaa madaxweynuhu waa inuu sharaxaa xukuumad ahaan waa inay sharaxaan baarlamaan ahaan waa inay sharaxaan dadka u sheegaan war maxaa dhacay waa waajib ummaddu ay u hayaan oo uu lixii loo doortay wuxuu ahaa inay hawshan dhammaystiraan waaba loo doortayba oo doorashada waxay ku yimaadeen in ay qabtaan oo waajibka dastuurka waajibka ka dhigayay marka waa khasab waa wax dadku ay ku leeyihiin oo ay waajib tahay inay u sheegaan qodobkan 160 faqradiisa koowaad ayaa ku waajibinaya inay hawsha qabtaan haddii ay qaban waayaan waa maxay macnaheedu waxa ka daraya mafhuul mukhalif waa maxay waa inay sheegaan sababtay u qaban waayeen sababtaasaan u qaban waayeen waa in la sababeeyaa xeerka si baarlamaanka ka dambeeya uga faa'iideysto oo uu soo ka faa'iideysanayo sababihii hore uu arrinta xal ugu gaaro isla su-aasha ku saabsan waxa hor istaagay in dastuurka la dhammaystiro una miro dhalo waxaan weydiiyey xildhibaan Sahre Cumar Maalin oo ka mid ahayd guddigii qorista dastuurka waxa waaye kala jabka haddii dastuurka uu ku yimaado muxuu ahayd qolada isla jaan qaadi lahayd marka annaga waxa ay soo saarto golaha shacabka waxaa la wadaagaa aqalka sare aniga runta haddaan ka sheego qof maanta igu qabsatana waa u sheegaa 54 qofood oo la isku ogaal xubnood oo la isku qaybsado si sax looguma qaybsan qodobkaas markuu waa jaban yahay oo waxaa ka maqan statekii banaadir dastuurka wuxuu ku fadhiyaa dowladda Maxamed Siyaad steedyada ay ka tagtay degmooyinka ay ka tagtay iyo gobollada ay ka tagtay kuma fadhiyaan qof walba gobolka uu iska sameystay qaarna waaba laga tagay sida banaadir oo kaleeto maaha anaa sida banaadir ah aniga galmudug aan kusoo jeedaa Alexander dhali ahaan waa noqon karaa banaadir marka arrimaha culus oo waxaa jira ahayd inay wada wadaagaan
marka waxyaalo badan oo annaga siyaasiyiintayna aan ku eedaynayo weliba siyaasiyiinta waaweyn oo hore oo maamulo soo qabteen aa dastuurkan ragaadiyey oon u arkinba wax dastuur ah. waaye wax yar dib noo celi marka dastuurka wax laga bedelaya ama dib loo eegay laleeyahay qodobo gaar ah baad ka tagteen oon laguba darin dastuurka oo dastuurkuusan go-aan ka gaarin. markaan ka nimaadno luqadda iyo meelaha la saxaya ee kooban bal waxaad ka hadashaa qodobada waaweyn kuwa yihiin iyo maxaanku idhaahdaa halkay maan taagan yihiin. qodobada waaweyn oo laga tegay qodob kasta horta soo ku jira waa weya. aniga markaan dhinacayga u fiirsho jender ahaan qodobka weyn oo laga tegayo waxay tahay qodobka ku jiro sida calanka oo kaleeto inta uu yahay iyo kale oo ku jiraan haweenka ah oo ahaa inaan meel walba kamid noqono midda doorashada ah doorasho lagu yimaado iyo midda magacaabid loogu yimaada. waa aragtay Haaruun markaa framework eegto dawladda halkeen uga jirna anaga shaqaalaha dawladda waxaan ka nahay oo caadiga ah oo shaqaysan karno 5%. qodobkaas horta qodobka ugu weyn waaye. waxa uu burburinaa waxay tahay cadaalad darro. justice-kan wax ku leenahay waxaan wax ku leenahay xukuumadda waxaan wax ku leenahay golaha baarlamaanka 3 xubnood inaan mid ka helno nidaamyaashan xaq u leenahay ka helno. qodobkaas marka waxaan jeclaan lahay maadaama saaxiibkayna aad tahay wax badan aan wada wadaagno inaan ila qaadato inuu qodobka ugu weyn oo u horeeyo oo jaban oo kaasi ah. midda labaad wada tashiga isteedyada iyo ay wada tashanayaan dowladda federaalka ah waxaa ka yimid waa ogtahay iyadoo laysku ogaa in la sameeyo doorasho qof iyo cod ah waxaa ansixmi waaye oo socon waaye xisbiyadii 100 xisbi. xalimeeri hadda anaga waa cusboon xalimeeri aan guddigeeda ee madaxda ka tahay ana dadka u oleeyaan kamid ahaa uma oleey saaxiibtinimo waaye hadda haddii muxuu ahayd qodobkan gabadha gruubkan haddaan loo cusboonaysiinin gruubka cusub oo la keenaya haddana ma haddii koobaa la bilaaba dastuurka haddii koobaa la qora dhaqaalaa ku baxay waqtigaa ku baxay cilmigaa ku baxay barnaamijka ay noo soo bandhigtay maalinta ay ka hadlaysay labaad yaabay xildhibaanada qaar waxay naga daa waxaas micno ma leh ma ahayn waa leeyihiin qodobadaas marka aan hadda soo taabto doorashooyinka oo hirgeli waaye taas haweenka oo hirgeli weysay ee wada tashiga dawladaha ay wada tashanayaan oo time framekooda wada hirgeli waaye anigu saddexdaas hadda u arkaa waxa ugu waaweyn. khudbadu guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal cabdiraxmaan ka jeediyey shirka macadka heritage ee ka socday garowe lagana baahiyey telefishinka dowladda soomaaliya ayuu kaga hadlay xaaladda dastuurka ee xilligan. arrimaha dastuurka aniga waxaan u kala qaadayaa labo qaybna waa farsamo qaybna waa siyaasad. marka ugu horeysa dhinaca farsamada soomaaliya waxay leedahay aqoon-yahano ku filan inay ka soo shaqeeyaan. dib haddaan u noqonno 2004 oo axdiga la ansixiyey xukuumaddii ugu horeysay ayaa loo xil saaray maadaama laga guuray dowladdii dhexe oo loo guuray dowlad federaal ah in la diyaariyo dastuur federaal ah. markaan ka soo bilowno marka 2004 iyo hadda aan joogno 2020 16 sano waxaan ku mashquulsannahay 140 iyo waxaan u malaynayaa 3 qodob. 16 sano farsamo ahaan dastuurka hadda waxaa la dhamaystiray 80% waa la dhamaystiray. labada guddiga isku dhafka baarlamaanka iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka way keeneen baarlamaanku yaallaa. waxaa dhiman qaybtii siyaasadda qodobada 54 qodobada ka mid ah. dadka qaar waxay ku tilmaamayaan qodobada qaar oo dastuurka inay isdhaxyaacsan yihiin. isma dhaxyaacsana hay-addii fasiri lahayd ayaa ka maqan. haddii hay-addii iska lahayd la siiyo dastuurka sida uu yahay u fasiri lahayd. waxaa kaloo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal cabdiraxmaan uu muujiyey in loo baahan yahay in maamul goboleedyada la siiyo doorkii ay ku lahaayeen dhammaystirka dastuurka. waxaan leeyahay dastuurkan waxaa lagu hirgelin karaa 1 dowlad goboleedyada ama dowladaha xubinta ka ah dowladda goboleedyada xurmadooda iyo yani ka qaybgalkooda in la ixtiraamo oo qayb weyn ay ka qaataan because dastuurkan markaan ka hadlayno federalismka waa qaybsi awoodda la qaybinayo. santarkiiyaan ka soo tagnay awoodiyaan qaybinay. maadaama la qaybiyey waa in maadaama awooddii la qaybiyey oo dhinacii siyaasadda dhinacii dhaqaalaha iyo dhinac walba
ay xaq u leeyihiin inay xuquuqdooda wixii kaga jiray dowladda dhexe ay qaataan go'aanada la qaadanayna qiib ay ka yihiin. marka haddaan la siinin doorkii ay lahaayeen weligiis dastuurkan ma dhammaystirmaayo. marka waxaan qabaa dhinaca siyaasadda si loo dhammaystiro ha la siiyo maxaa la yidhaahdaa doorkii ay lahaayeen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. siyaasiyiinta qaarkood waxay ku doodayaan in waddanku uu qarka u saaran yahay qalalaaso dastuuri ah iyadoo aan la dhammaystirin dastuurka islamarkaana aan la dhisin maxkamaddii dastuuriga ahayd oo fasirta qodobada la ysku hayo ee dastuurka. galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda dastuurka iyo labada guddi ee dastuurka ilaa haatanna nooma aysan suurtogelin inaan ka waraysanno arrimaha dastuurka. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.